السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواني وين سلامي سلام كدب إن بدن ولا كلام مغنى كليبيدي أدنى وقبرتين الدبريان معنا سوقنا دي شقدين ونوضة بديراتي حوغا سفرنا مع المرجد واسكك الكلماركا نومي سامحين إنا جوكتين وكليب كان برامج كان يجي برو كونا برباري إنا وقتي والبحشان laakiin saan marka hore u wada idinka ballan qaadnay barnaamijku waqti ugu horeysay waqtiga la helaba insha Allah waxaan rajeynaynaa inaan joogteeno hadda wixii ka dambeeyana de waxaan rajeynaynaa insha Allah inaan istaabil noqon doono insha Allah de joogteyn doono kalibyada sidii waalidiin badan oo Soomaaliyeed ay kaga faa'iideystaan bal barnaamijkaas baro kuna barbaari de muhiimadu waa inuu waalidku barta isagu intuuna barbaarin waa inuu waalidku yaqaan waxa uu canuunkiisa ku barbaarinaya maxaa sax iyo maxaa khalad ah waalidku inuu barto xaduudyada qaabka loo dhigo iyo qaabka loo fuliyo waa inuu waalidka barto ilmaha midna waa qaalqaalid oo dhib badan oo dee iska natural ah midna waa cunug yar oo iska dansan oo dee maaragtay aan hadlaynin ooynaynin dhibaatadiisa sheeganaynin cunugna waa cunug iska caadi ah saddexda ilmoodba haddii adiga ilaahay ubadkaaga dhigo ku siiyey kugu israaqay qaabyo kala duwan oo dee loo kala wajaho barbaarintooda ay ku xiran tahay ilmaha iyagoo isku da ama mataana ama labadii dood isku xigtay iyo haddana dee iyadoo la fiirinayo sida biseylkooda maskaxeed iyadoo la fiirinayo barbaarintooda kala duwan tahay dee markuu waalidku waa inuu yaqaano marka barbaarinta waxa ay tahay si uu maaragtay u wajaho barnaamijkaas dee cunugka 5 jirta iyo 6 jirka iyo cunugka 10 jirka iyo kan 15 jirka isku si looma barbaariyo dee barbaarinta laftigooda iyadoo haddana maskaxda iyo biseylka la eegayo iyo haddana waxay ku xiran tahay daada that's why aan leenahay marka waalidiintu waa inay bartaan qaabka caruurta loo barbaariyo gaar ahaan markaan joogno dee wadamadan qurbaha aan joogno dee haddaad tagto meel duurahoo dee aydi iyo waraabuhu iyo libaaxu ku badan yahay waa inaad dee hubkii iyo warankii waxaad isaga celinayd waa inaad haysatid haddaad marka wadankan soo gashay si aad kaga badbaadid dee maarta inayna ilmihii gacantaada ka bixin waa inaad barbaarintii qaabka loogu talagalay dee wadankan sharcigiisana ogol yahay annaguna dee diintanada iyo dhaqankanaba ogoshahay inaan ilmihii ku barbaarino oo dee ilmihii waxyaalo fara badan oo dee maanta dhacaya dee dalkii Soomaaliya yihiin iyo wadamadan qurbaha dee xabsiyada laga buuxa iyo ilmo fara badan oo dee iskuuladii ka dhacay ilmo badan oo dee mindiyaha isku dilay 24 saac iyo dalkan laga Soomaaliya daartay dee gabar yar oo 10 jira 4-5 wiil oo dee 20 jira intay isugu tagaan haddana dilay ama Facebook saaray waxaasoo dhan waxaa sabab ah barnaamijkii loogu talagalay ilmaha in lagu barbaariyo markay yaryihiin akhlaaqdii dhisidda akhlaaqda markay yaraayeen yaa meeshii ka maqan marka doorkii waalidnimo dabcan wuu joogaa laakiin dee waalidka waxaa loo baahan inuu barto qaabka loo dhisa akhlaaqda caruurta dhisidda akhlaaqda ilmuhu marka waxay ku hogaaminaysaa inay ilmuhu bartaan waxa saxda iyo waxa khaladka ah inay ilmaha bartaan haddii dee marka horeba cunuga lasoo dhiso akhlaaqdiisa si diiniin iyo si maadaba loo dhiso waxyaalo fara badan oo maanta dalkii ka dhacaya iyo halkan aan joognaba waxyaalo fara badan waxaan isleeyahay dee inkastoo dee wuxuu ilaahay qoray aan laga badbaadi karin haddana dee waa laga baaqsan karin waxyaalo fara badan oo ka mid tahay ilmihii drugs ka bartaan xabsiyada galaan 5-6 wiil oo 22 jira intay soo raacaan gabar 10 jir intay qofsan haddana Facebook saaray ama dilayaba waxaasoo dhan waxaa ka maqan ilmihii wax xakimayo dee ama diini ha noqoto ama maadi ha noqoto ama akhlaaq xakimaysa midna ma jirto marka dhibaatadaas oo dhan marka waxaa u sababa dee ilmihii inaan marka horeba lagu soo barbaarinin akhlaaqda iyo edebta dhisan dabcan dee ilmaha Soomaalida oo dhan ma dhisna ma lihin laakiin dee kuwa aan dhisna inaan ka hadlaynaa mar walba haddii marka uusan waalidku una bilaabin inuu cunuggiisa akhlaaqdiisa dhiso ama barbaarinta uu bilaabo cunuga marka uu yar yahay hadhow way adkaanaysaa marka cunuga inaad barbaarintii aada barbaarisid sababta cunuga markuu yaryahay waxaa loo baahan yahay in xaduudyada loo dhigo cawaaqibka leedahay hadduu xaduudka jabiyo inaad adigu waalidkii leedahay adkeysinkii cunuga markuu ku adkeysto inuu xaduudkii jabiyo oo hinay leedahay qayli bay leedahay hanjabaad bay leedahay
amar diiddo fara badan bay leedahay. qaabku waalidku u wajihi lahaa waa inuu barta moogtahay. xaduudka intaad iska dhigto dee hala raaco amin dee aayadii xadiid maaha waxaa sheegaysid. waxaad barbaarinaysin waa dee ubad da-doodan yar tahay, maskaxdoodan yar tahay, dee aragti adig kaa duwana sita. waxay u baahan tahay marka akhlaaqiyan, waxay u baahan tahay marka iyo marka la dhisayo dulqaad fara badan iyo aqoon iyo qaab loo wajahay u baahan tahay. marka taas waxaan leenahay waalidiintu inay barbaarinta iyo dhisidda akhlaaqda birtaan ay bilaabaan caruurta marka ay yar yihiin. waxaa laga yaabaa cunuga inuu halka sano 2 sano markuu jira waxba lagu darsanin oon dee loo arkoon dee cunuga iska beebi oo marna dee bidixna loo dafo marna midiga loo dafo wixii rab laga sameynayo may. cunugu in alla inta marka uu dhasha laga soo bilaabo waa aragtay dee hadalka lagu bilaabi dee maantana loo heesi dalkan markaan joognay dee ilmaha loo heesi jiray. ilmaha waxaasoo dhan way fahmayaan moogtahay wixii sax iyo wixii khalaqda waa in marka horeba lagu soo bilaabo ilmaha. waxaan marka halkan kusoo gudbinaynaa 5-6 tallaabo oo waalidiintu ay tahay inay maraan ama 3 wado ama 6 wado adi 3-4 kusoo koobaynaa oo waalidiintu ay kala maraan. marka kuwana dee way saxan yihiin, kuwana ma saxanoo si loogu talagalay maaha. waxaan fiirinaa marka tarbiyadda koowaad iyo ta labaad iyo ta saddexaad iyo ta afraad aan fiirin doonaa insha allah. markaa fiirisa tarbiyadda koowaad waa waalid marka ilmihiisu isaga u sameeyey sharci iyo xaduud aada u adag, doonayana in had iyo jeer la qaato amarkiisa isagoon wax xaduud iyo sharci ah aan barin ilmihiisa. ilmuhu marka ma fahansana faa'iidada ay leedahay akhlaaqdaas iyo maaragtay iyo xaduudka la dhigayo. cunuga waxaa la rabaa markaad xaduudka u dhigaysa inuu fahmayo dee uu kusoo barbaaray marka horeba xaduudkaa dhigaysa adigu. haddii laakiin uu mar una iska noqoto odoon xal iska seexdo un diwaaga baryo ama reer kale intaad u tagtaa dee ilmahooda dee xaduud iyo sharci kala dambeyn yihiin inaad ilmihii 12 jir 13 jir ku bilowdid dee meesha caqabad fara badan iyo dhibaatooyin fara badan baa kaala kulmaya. marka waalid waa un waalid iska soo riyooday oo dee markiiba xaduud iska bilaabaya kan yaan la sameynin ilmihii aan la kulmin, aan u sheegin faa'iidada ay leedahay tarbiyadda iyo caqawaaqibka ay leedahay iyo ujeedadii hadafka laga leeyahay sharciyadan, mananu kusoo barbaarin marka hore. waalid waa midkaas. tarbiyadda labaad waa waalid marka ilmihiisu u sameeyey asaga sharci iyo xaduud yar oo aan kala jeclayn inay ilmaha xaduudka gudbaan iyo in kale. mar walba marka wuxuu fiirinaya asagu isku dhaca ilmihiisu ilaalinaya mar walba maaragtay uu iska ilaalina. wuxuu mar walba isku daya ilmihiisu inuu qancin karo oo sida ay rabaan u yeeri karo. xaduudku wuu samaysan yahay dabcan, laakiin xaduud consequence ama cawaaqib leh hadday gooyaan male. hadday ilmihii ooyaan, hadday ilmihii xanaaqaan, hadday ilmihii jinniyi isku ridaan, markiiba dee waalidkii maskaxdiisu bedelaya. marka wuxuu ku leeyahay okay hay waxaa iska sameeya. intaa marka wuxuu ilaalinaya ilmaha qalbigooda buu ilaalinaya dabcan, ama isku dhaca iyo wuxuu ilaalinaya maaragtay inay ilmihii asaga isku dhacaan. barbaarinta markay noqoto waa inaad wajahdo inaad ilmaha isku dhacdaan, oohintiisa iyo qaylidiisa iyo canhaantiisa iyo amar diidadiisa waa inaad wajahdid moogtahay ood joogtaysid. haddaad laakiin cunuga u barto markuu ooyo inaad adiga dabacdo wuxuu noqonayaa marka hub uu isticmaalo oo uu marka dambe yacni technique farsamo uu la imaado oo marka dambe uu kugu maalo ay noqonaysaa moogtahay. marka waalidna waa midkaas. tarbiyadda saddexaad waa waalid marka ilmihiisa u sameeya sharci iyo xaduud cad, sidoo kale doonaya in uu dhageysto maaragtay fikradda caruurtiisa. xaduud u sameynaya, xaduudkiisu waa cad yahay, wuu kusoo barbaariyey. haddana wuxuu doonayaa de ilmihii inuu la munaaqashoodo de wixii saxda iyo wixii khalaada iyo fikirkaadii ay qabaan inuu kala hadlo oo u arko rabitaanka ilmihiisa marka uu dhageysto. waana waalid doonaya marka inuu u sharaxo hadafka iyo ujeedada laga leeyahay dastuurkan iyo xaduudkan iyo sharcigan iyo barbaarintan iyo waxaan la dhigay asaga uuna marna aqbalaynin in la jabiyo ujeedadii hadafka laga leeyahay. marka waalidiintu saddexdaa wado waayo ay maaragtay kala marayaan moogtahay. waalidka marka sidoo kale wuxuu had iyo goor marta ku fekeraa
in xiriirka ilmihiisa uu wanaagsanaado. haddana hadaan xaduudkii la jebinin oo dee maaragtay ilmihii markii ay u arko waalidkii in uu asaga joogtay xaduudkii uu asaga maaragtay 24 saac xaduudkii uu ku adag yahay, haddii la ooyay, haddii la xanaaqay, wixii lagu heshiis shalito inaan marnaba aan la dhaafaynin. mid kale xaduudka markaa dhigaysid lama rabo inaad adigu iska jeexdo xaduud ood u sheegtay kan lama ogola, kan lama ogola, kan lama ogola. ilmaha waa inaad la fadhiisataa ood u sheegtaayoo xaduudka la sameynayo sidaad u aragtaa, hadafkii ujeedada laga leeyahay waa inaad u sharaxdaa. ilmaha fikirkooda iyo ra'yigooda waa inaad barnaamijkan la dhisay uu ka qayb noqdo. haddii ilmaha markuu arkaan ayagu fikir ay keeneen iyo aragti ay keeneen akhlaaqda, dhisida akhlaaqda iyo xaduudkan la sameynayo fikir ayay ka yimid uu ka dhex muuqdo, ixtiraamkooda aada u badnaa marka in sharcigaas la ixtiraamo. haddii laakiin mid aad iska go-aamiso, dee sharciyadan xaduudadan iyo waxaan aad adigu sameynaysa ilmahagu waa kala da maskaxiyana dee isku bisayl maaha, isku da'na maaha, isku dabeecad iyo isku dhaqanna maaha. xaduudyada laftigooda la sameynayo waa inay ilmaha u kala duwanaato. dee da' iyadoo la fiirinayo, bisaylka maskaxda iyadoo la fiirinayo, waa in lagu dhisa xaduudka marka ilmaha loo sameynayo. haddaba marka xaduudka aan la sameynin, ilmuhu way adkaanaysaa in la kontaroolo, waxbarashada in lagu kontaroolo, la dhaqanka bulshada in la baro way adkaanaysaa. qaabka ilmaha u dhaqmayaan baa ka mid ah markay guriga joogaan, markay iskuulka joogaan baa ka mid ah. galaaska markuu waqti tiimaha socday macalinka dee oo teachingkii uu ku jiro dee maadadii bixinaya ka mid ah. cunuga garabkiisa fadhiyo qaabka oo la dhaqmaya ama buug ama qalin ooga deymanaya ka mid ah. dukaanka markaad u dirta qaabku ooga soo gadanaya iyo qaabku adeega u fulinayo iyo qaabku lacagta u bixinayo, safka la geliya dabcan yaa ka mid ah. basaska iyo tareenada marka la saaranayo diyaaradaha ka mid ah qaabka loo dhaqmaya ka mid ah. dee akhlaaqda waa waxaas. masaajidka cunuga markuu joogo qaabka u dhaqmayo, dee ilmuhu waa inay u kala soocan yihiin markuu asaga gurigiisa joogo, markuu futbolka joogo, garoonka futbolka joogo, markuu guriga joogo, markuu masaajidka joogo, markuu dukaan wax ka gadanayo, markuu cid booqasho ugu tago, markay cid booqasho ugu imaato, waa inay ilmaha u kala soocan yihiin qaabku ilmaha u dhaqmaya asagoo. dee waxaasoo dhan waxay ku xirantahay barbaarinta lagu soo bilaabo cunuga markuu yar yahay iyo xaduudka loo dhigo ilmaha inay ixtiraamaan. ixtiraamkana waxaa asal u noqon doona dee inaad adigu joogtayso fikirka iyo maaragtay xaduudeynta inaad adiga joogtayso, ilmihiina fikirkooda iyo ra'yigooda ay ka dhex arkaan xaduudka iyo barnaamijka la sameynayo. ilmaha waa in lala kulmaa, ra'yigooda la dhegeysto, fikirkooda la dhegeysto, wixii wanaagsanna laga qaado, wixii kalena diidaysana ama aan dee markaas aan actuality ama relevant ahayn inaad u sheegtay sababtoo de qodobkaas hadda aanan u qaadanaynin, laakiin de waqtiyo kale ka habboon tahay in lagu daro inaad u sharaxday caruurtii. marka akhwani, barbaarintu shay aada u fudud maaha. xaduud ilmaha in loo dhigana wax fudud maaha. maasha allah, ilaahay ilmo badanna siiyey 5 6 7 8 sideedda ama 6da ama 5taad adigu dhashay ama 4taad adigu dhashay, isku daana maaha, isku bisayl xagga maskaxdana maaha. taas waa inaad kow marka hore ka fikirtid. marka in waalidku uu cunuga xakameeyo oo uu ku barbaariyo dhisida akhlaaqda uu bilaabo waqti hore, waxay kaa badbaadinaysaa isku dhac fara badan, inuu iskuulkii ka saaqido, inuu cunugii ciyaaro suuqo, meeshii la rabay cunuga meel ka soka inuu ku dhaco. waxaasoo dhan badbaadinaysaa. saddexdan hadda aan marnay dee xaduudka waalidku uu asoon cidna la tashanin, cunugna uunan ka wargelinin, uu asaga iska dhigay, iyo midaan iska jilicsanay in la jabiyo in kale haddaan laga lahayn, iyo midaan wanaagsan ee ugu dambeysan isleenahay dee waa wadada ugu wanaagsan in la maro. xaduud adag la dhigo, waqti hore lagu bilaabo, waalid ubadkana la dhegeysto. ta ugu wanaagsan ay tahay kaliibka ku xiga waxaan fiirin doonaa insha allah inaan tusaalooyin concrete usoo qaadan insha allah. de wixii hadda ka dambeynaya insha allah waan joogdeyn doonaa insha allah hadduu leeyahay barnaamijkan hadduu. assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.